inta la xaqiijiyay 7 ruux ayaa ku geeriyootay oo dhamaantood dad shacaba tiro kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray qarax loo adeegsaday gaari nooca raaxada kaasi oo la dhigay meel maqaaxi ah oo ku taala wadada xiriirisa hotelkii hore ee Jubba iyo taalada daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho. dadkii ku dhaawacmay qaraxani ayaa loola cararay isbitaalada magaalada Muqdisho halkaasi oo xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo. afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Xalane ayaa saxaafadda kula hadlay halka dhibaatadu ay ka dhacday. dhimashadu waa 7 dhaawacana wili kama hayo tir rasmi ah. qaraxan wuxuu ka dhacay maqaaxi shacab leeyahay ee ka soo horjeeda wasaaradda isboortiga dhalinyarada ka soo horjeeda. 7 qofood ku dhimatay goobta oo qaarkood yihiin darawal arday waday oo ku jiro dhaawacna waa jira waa loo soo gurmaday cadawgan ummadda dhibaataynaya ilaahay baan ka rajeeyay inaan ummadiisa ka qabto gaari saarufa ayuu ahaa oo goobta dhigeen wayna ka tageen marka wixii baaritaan ka soo baxay idin la wadaagaynaa. lamaha ammaanka oo meesha yimid qaraxu ka dhacay ayaa hadalkooda ku soo koobay oo kaliya inay wadaan baaritaano la xiriira qaraxani taasi oo mar walba haleys u ah lamaha ammaanka. Cabdiraxiin Cabdullaahi Honkebel TV magaalada Muqdisho.